السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصحى شرفت بدن سودو هذا مركل كسودو هذا مقال كلام ولكن صاحب كنا اسمه نسوي جنا كوسو برو هذا وي كدي وحنا صلا أركينا كبدي يوسف ده حالة هذا تاه. Walking and running and twirling and stuff. I love it. Look at Bianca now. هذا سيدا أنا كي كنا مركان قبل سيدا هيدي هذا فرقي أو دحيو oo hadda waxa waaye gabadhii wariida ahayd ayadoo isla socdaan oo gacanta ay haystaan mana qaylinayso waxyaabo aan loo baahnayna ma sameynayso. I'm so grateful for this. Like I can't believe how much I'm grateful for like having this operation because it's changed my whole entire life. waxaad u mahadcelinaysaa waliba aad ugu mahadcelinaysaa dhakhtarkii iyo dadkii barnaamijkan ma aragtay ka shaqeeyay inuu u hirgalo. Bianca says she feels 95% better already, and clearly her family does too. This week we've done nothing but smile. familkeeda aad ay ugu farxeen isbedelkeena waxayna yiraahdeen yani isbuuci kor gurigeena yani muruga ka jirtay sidaan loogama faraxsaneen haddana anagoo dhan waan wada dhool cadaynaynaa dhakhtarkii u imaaday gabadhii oo maaragtay xaaladeeda fiirshay waxa uu ku arkaa wali yani shigshig oo kale ama hakad oo kale inuu ku jiro marka ay hadlayso sida kale guud ahaan waxa la yiri 95% isbedel ku yimid xaaladeeda wuxuu leeyahay marka inta dhimana way bixi doontaa laakiin ayadana waqti yar ayay sii qaadan doontaa. okay hada marka muuqaalka aan inta marayno ha u maleyn inaan soo gabagabeynay ama aan dhameynay qaybtan documentary-ga ama muuqaalkan waxa ay ahayd qaybtii hore qayb kale oo laga sameeyay ayaa jirto gabadhii oo weynaatay oo qof weyn noqotay iyo de birahan la galshay ama operation kan lagu sameeyay sidee ayuu u saameeyay nolosheeda ma sii socday mise waxba isbedelay. With Bianca Sayers. When I first met her, muuqaalkii hore iyo muuqaalkan waxa u dhaxeeyo 11 sano. markii hore operation kan lagu sameeyay waxay ahayd 16 jir haddana waa 27 jir xilliga muuqaalkan kale la sameeyay. Couldn't look you in the eye. her severe Tourette's somehow under control while she sings. 11 sano kadib markaa ayadii weynaatay oo guri yeelatay aan aragna markaa muuqaalkeedii wax iska bedelay sida ay tahay wali marka la eeyo waxay isla ag fadhiyaan hooyadeeda. I got Tourette's, I'm sorry. Aliens took to their hearts back in 2008. waatana See, that was Tourette's. Living an independent, hadda waxaan aragnaa markaa inay xaaladii ay ku soo laabatay oo yani waxyaabo aan loo baahnayn ay sameynayso inkastoo hadda markaanay yani ay weynaatay oo caqli ahaan markaasi qosol ay wax ay ku darayso xitaa dadkan ay u sheegayso oo ay leedahay xaaladaas aan qabaa haddana waxa ku soo celshay iyo yani waxa dhacay markaa aan isla ogaano. I'm trying to be positive and, you know, I guess I'm very resilient. okay dhakhtarkii operationka ku sameeyay Bianca oo aragno isaga laftirkiisa inuu isbedel ku yimid ayaa markaasi waxa uu inoo sheegayaa xaaladda Bianca sida ay noqotay. I think the hope for Bianca was that she wanted to give it a good red hot go. It was only like the first 2 weeks that the first brain operation that I like saw an amazing difference. qaliinkii ama operationkii lagu sameeyay Bianca waxa kaliya uu jiray 2 isbuuc. a staph infection, which ultimately led to the removal of the life-changing electrodes. 2 isbuuc kadib markaa waxay noqotay inay soo dhul dhacdo oo ma aragtay birihii ayaa waxay ku qasbeen in maskaxdeeda ay infection qaado oo ay xanuun ku keenaan. si kasta ayaa la isugu dayay markaasi oo loo dadaalay in la toosiyo laakiin si kasto ay noqoto waa lagu daalay oo waxay noqotay isku day walba in la guul dareystay taasoo markii dambe ka dhigtay in Bianca de la yiri yani wax dhanba yaa la gelin sidii ha ahaato de xaaladeedii oo wixii ay sameyn jirtana markaasi ay soo laabtaan. Bianca's deep brain stimulation therapy had to be abandoned, allowing the Tourette's symptoms to return. ayadoo ka sheekeynayso labadaasi isbuuc ayaa waxay leedahay markaasi labadaasi isbuuc ayaa waxay ahayn labadii isbuuc oo ugu fiicnaa nolosheeda. buug waan akhrin karay anigoona jarjarin wax waan qori karay yani tartiib anigoo degan aan dadka la hadli karay oo qofna aanan iga warwareyn anigana aan qofka warwareyn. And I had the way I felt and I could write on paper again and I could read books without ripping them up. hadda xilligan la joogo guriga ka baxsan ayay degan tahay oo nin ayay maaragtay markaasi isqabaan oo isla nool yihiin. hadda markaa gurigeeda ayada ay degan tahay guriga yaraanteeda ay kusoo kortay siday u jijabisay maadaama aan aragnay gurigeeda hadda ay degan tahay ayaan haddana wada arkaynaa. It's a lot stronger, and it's not as much that I could break and stuff. So you just take your hands now? Yeah, but that's alright, I'm used to it. But this is my Doctor Who phone. Oi,
sidaan arki karna hadda meeshii oo leyrka laga daminayay waaye waxaa laga dhigay sidaas oo bir ayaa laga dul saaray meesha kalena waa telefoon caadiga mobile oo gacanta ma haysan karto ma isticmaali karto sababtoo ah dee ayadoon isogeen ayay jebinaysaa oo waqti kuma qaadanayso telefono badan oo ay jebisay ayaa jiro oo tiradoodu ay aad u badan tahay marka ayadan waa naloo sheegi doonaa laakiin hadda meeshan cagaaran hadda arkayno waa meesha maaragtay markaasi ay ka wacto dhakhtarkeeda haddii ay xaaladeedu ay wax isbedelaan And it's been specially made for me in this house. But they've put hard in the way I can put holes in the walls and everything. And they've also put plastic windows in. So that's a plastic window. So if I bang it, it just bounces off. So ayda markii ay yareed guriga reerkooda ay deganeed laguma tashaneen inay xaaladeeda ay sidaa noqon doonto dee gurigana reerka ay ku noolaayeen sidaas ayay ku nooleed oo ay u jijibisay laakiin gurigan dambe maadaama xaaladeeda la ogaa wax walba waxaa loogu dhisay sida ayada ay maaragtay ku badbaadi karto wixiina ay kaga badbaadi karaan tusaale ahaan hadda kan derbiga waa la adkeeyay oo haddii ay gacanteeda ku dhufato si sahal kuma jabaayo daaqadaha oo kale meesha guriga kale uu dhala ka yahay ama guryaha kale ay dhala ka yihiin ayada waxaa looga dhigay marka plastic oo haddii ay xitaa gacanta ay ku dhufato yacni wuu diismaya haddana wuu soo laabanaya 12 microwaves, 7 TVs, 4 toasters, 7 kettles, and 850 phones. meesha ay ugu daran tahay marka intaan waaye waxay jebisay 7 TV meelahaas aan u maleynayaa sidoo kale microwave oo yacni kan wax lagu kuleysto kan oo shaaxa lagu karsado ama biyaha lagu karkariyo oo maaragtay deesna sidoo kale 700 meelahaasi ka badan adiga dee yacni alaabta ay jebisay markaasi lama tirin karo haba ugu darnaatay inay jebisay ilaa ay markaa muuqaal kala sameynayay 850 telefoon macnaha waa loo soo gadaa hor la ka jebinaysaa All the glass from the bathroom has been removed. I'm sorry, mate. It's alright. Oh, you wanna fuck me, Ed? okay marka hadda intaan aan ka aragnay Bianca waxaa inoo dhiman dee qofkeeda dee isla nool yihiin asna kuley Anchor finds love. I'm sorry, darling. waakasaasna hore dharbaaxshada kaga dhacaysa waa la jumina horena waa laga dharbaaxa And making the extraordinary ordinary. okay marka hadda ugu dambeyn Bianca xaaladeedu waxa ay noqotay in sideedii ay iska aato hadda marka channelkana ay leedahay xitaa oo ay kusoo bandhigtaa xaaladeeda iyo wax walba sida ay u yihiin marka hadda ugu dambeyn sidaasi ay iskala nooshahay intii ay control karto ama ay isku day karto ama ay reer magaaleyn karto qosol ay ku dari karto waa ay sameysaa inta kalena xaaladeedu waa u sidaas marka guud ahaan marka muuqaalka aan soo leexan kulay waa xanuun oo maaragtay daran oo dee qofkii ay noqoto inuu ku dhacaba ilaahay ka caafiyo dhamaantiin waa maasantihiin insha Allah ta muuqaalkan aad daawateen muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad ah